macluumaad madax bannaan ayaa ka soo baxaya wadahadallo gaar oo madaxtooyada Soomaaliya ay ku yeesheen ergada caalamiga ah arrimaha Soomaalida qaybtooda loo yaqaano C6+ oo ay ka maqnayd dawladda Mareykanka iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya ee waqtigan taagan inkastoo dhinacyadu aysan baahin dhammaan muuqaaladii hadallada laga jeediyay shirka si daahfuran warbaahintana aan la siinin door dhammaystiran haddana ilo kala duwan oo ka qayb gala kulanka oo ay ka mid yihiin danjirayaashii kulanka xaadiray waxaanu qaarkood ka soo xiganay waxyaabihii laga wada hadlay ee madasha dhinacyadu ay ka jeediyeen hadal jeedinta kulanka ee bilowgii waxaa bilaabay ergada caalamigii waxayna bogaadiyeen dadaaladii dawladda federaalka ee ku wajahnaa xal raadinta gaar ahaanna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha heshiiskii la gaaray 17 Sebtembar iyo meelmarintii baarlamaanka waxa ay sheegeen in tallaabooyinkaas ay muujinayaan sida wali hogaamiyaasha Soomaalidu u doonayso in la helo wadajir go'aan ah iyo in doorashada la qabto ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrinta Soomaaliya James Wan ayaa madasha ka bogaadiyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo uu sheegay inuu dadaal badan galiyay sidii loo dhammaystiri lahaa is-afgaradna loo gaari lahaa dhammaan qorshayaashii iyo heshiiskii 17 Sebtembar wakiilada dalalka UK iyo Sweden iyo midowga Yurub waxa ay walaac ka muujiyeen arrimaha wali taagan oo ay ka mid yihiin sida ay tahay in looga gudbo caqabadaha la xiriira hirgelinta heshiiskii la gaaray waxa ay sheegeen dhammaan dhinacyadu ay la wadaageen walaacooda ayna qabaan in la dhammaystiro loona helo wadiiqo looga gudbayo arrimaha taagan oo dhinacyada oo dhan ay isku raacsan yihiin danjirayaashu waxay walwal ka muujiyeen dhaqaalaha lagu xiray musharaxiinta kuraasta labada aqal doonaysa waxayna ku sifeeyeen go'aankaasi mid talada looga dheeraynayo dadka aan dhaqaalaha haysan iyo haweenka musuqmaasuq ayayna sheegeen in horseedi doonto tallaabadaas waxa ay ku booriyeen dhammaan dawladda federaalka madaxdeeda in laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qoondada haweenka iyo dhalinyarada dhaqaalaha la jaangooyeyna uu noqdo mid ugu yaraan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadu ay dib uga fakaraan ku dhawaad 30 daqiiqo oo ay hadlayeen wakiilada caalamiga kadib madaxweynaha federaalka ayay wararku cadeynayaan inuu hadlay 20 daqiiqo oo uu jeediyay khudbad jawaab u ahayd dhammaan arrimihii ay ka wada hadleen wakiilada caalamiga waxa uu diiradda saaray 5 qodob oo ku saabsan arrimihii madasha looga hadlay gaar ahaanna kuwaas oo dhammaan quseeyay arrinta doorashooyinka farmaajo waxa uu bilowgay hadal jeedintiisa guda galay heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii hore sida uu ku yimid cidda soo qortay qodobada laga diiday asaga in loogu daro heshiiska iyo arrimaha dib u dhaca keenayba waxa uu sheegay in sanadkii 2017 ay magaalada Baydhabo dhammaan madaxda dawlad goboleedyadu ku saxiixeen heshiis la xiriira hirgelinta doorashooyin qof iyo cod ah 50 sano kadibna ay golayaasha dawladdu meel mariyeen sharciga doorashooyinka isaguna saxiixay bilowgii sanadkii 2020 dawlad goboleedyada iyo guddiga doorashooyinka waxa uu sheegay in qaarkood ay diyaar garoobeen laakiin wuxuu sheegay nasiib darro in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay diideen qabashada doorashooyinkaas gabi ahaanba ayna dawladda federaalka ku kaliftay in la qabto kulamadii dhuusamareeb 1 2 ilaa 3 lagana soo saaray in lagu laabto nidaamka doorasho dadban haddana mar kale qodobadii dhuusamareeb ayuu sheegay madaxweyne Farmaajo inay diideen Puntland iyo Jubbaland Farmaajo ayaa u sheegay wakiilada caalamiga ah in shirkii Muqdisho muddo hal bil ay u fadhiyeen madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu sheegay in isla qolkan shirku ka socday saaka ay subax kasta imaanayeen madaxda Jubbaland iyo Puntland ay qorteen heshiiska ayna dhammaan dhinacyada kala raalli uga noqdeen si buu yiri looga gudbo ishaysiga looguna kala tagay iyadoo la isku raacsan yahay heshiiskan wuxuu sheegay Farmaajo in qodobada uu watay oo ahaa 2 qodob ay diideen heshiiska lagu daro Dani iyo Axmed Madoobe kuwaas oo uu ka tanaasulay ugu dambeyn wuxuuna ku sheegay 2 qodob inay kala ahaayeen kow in doorashada ay maamulaan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Xaliimo Yare hogaamiso oo wakiilada caalamiga markhaati gashaday inay dhaqaale badan laftirkoodu galiyeen iyo qodobka labaad oo ah in lacagta musharaxiinta laga dhigo sidii doorashadii 2016 balse wuxuu sheegay in lacagta soo jeedinteedu ay ahayd in la badiyo mid ka timid madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay inuu madasha kaga doodeen haweenka la siiyo ka qaybgalka siyaasadda oo lacagta laga dhimo laakiin uu madaxweynaha Puntland ku dooday in dadku ay siman yihiin oo isku lacag laga qaado halkaasna labadii qodob ee heshiiska uu ku soo dareebay laga diiday uuna ka tanaasulay sida ay cadeeyeen dhinacyada madasha joogay madaxweynaha dawladda federaalka ayaa ku eedeeyay Puntland iyo Jubbaland madaxdoodu in kadib saxiixii heshiiskii Muqdisho 17 Sebtembar ee sanadkii hore
labada dhinacba u anbabixeen dibadda dalka ayna soo laabteen iyagoo beddelan dhammaan waxay heleen wax alla iyo wixii ay rabeen ee doorashada ah anigoo aan wax soo jeedina ku lahayn dhammaan qodobadii 17 Sebtembar waxaan markaasi kadib u qaatay inay wax walba dhamaadeen maadaama aan saxinay heshiiskii iyagu ay rabeen kadibna dibadda ayay aadeen markii ay soo laabteenna way isbedeleen haddana mar kale haddana waxaan sugaynay muddo 5 bilood ah bal inaan eegno inuu fulo heshiiskii ayuu madaxweynaha federaalku sida ay cadeeyeen ka qaybgalayaasha kulanka farmaajo oo sii wada hadalteedintiisa wuxuu sheegay in markii ay hadal ka soo celiyeen heshiiska ay saxeen 17 Sebtembar labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland ay dawladdiisu samaysay dadaal kasta oo ku wajahan sidii xal loogu heli lahaa wuxuu sheegay inuu u diray Garowe ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka si heshiiska loo fuliyo iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye dadaaladaas wuxuu sheegay inay ka socon waayeen xagga madaxweynaha Puntland madaxweynaha federaalka ayaa daqiiqadii u dambeeyay hadal jeedintiisa u adeegsaday sida ay sheegayaan ka qaybgalayaasha kulanku erayo adag oo ku wajahnaa madaxweynaha Puntland gaar ahaanna waxa uu si cad u sheegay in Siciidani muddo 2 bilood ah uu subax kasta u sheegay inuu guddiga soo magacaabayo laakiin ay ahay mid aan waxba ka jirin si waqti loo lumiyana uu taasi u sameeyay Siciidani farmaajo ayaa ku gabagabeeyay hadalkiisa mahadcelin uu wakiilada caalamiga uga mahadceliyay inay madaxda Puntland iyo Jubbaland aqbaleen cadaadiskii beesha caalamka oo ay soo gudbiyeen liisaskii guddiyada laga sugayay waxaan ku faraxsanahay inaan arko inay ugu dambeyntii aqbaleen cadaadiskiina oo ay soo gudbiyeen liisaskii guddiyada laga sugayay run ahaantii waan idinka mahadcelinaynaa dadaalkiina aad uga dhaadhiciseen inay hawshaas qabtaan annaga waa naga diidan inay xurmeeyaan wixii aan ku heshiinay waan ku faraxsanahay inay ugu dambeyntii idinka idin dhageysteen ayuu madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ergada caalamiga ah iyo madaxtooyada Soomaaliya waxay dhamaadkii isku raaceen in la qabto kulan degdeg ah oo looga wada hadlayo arrimaha doorashooyinka taasoo ay madashiisa galinkii dambe shaacisay madaxtooyada Soomaaliya lagana dhigay magaalada Dhuusamareeb kaasoo qabsoomi doono 1 bisha ugu soo wajahan ee February